بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله waxaan shirkan jaraa'id u qabanaynaa maanta sida laga warqabo magaalada Baydhabo waxa lagu xiray wariye wakiil wareed u ahaa idaacada VOA ee ku hadasha luqadda Soomaaliga wakiil wareedkii Baydhabo u joogay Mukhtaar Maxamed Catoosh oo ciidamada booliiska magaalada Baydhabo ay soo xireen iyagoo amar ka helay xafiiska xeer ilaalinta gobolka Baay waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan si faahfaahin mug leh aan uga warbixiyo xaaladda Mukhtaar Maxamed Catoosh iyo qaabkii loo soo xiray sida la ogyahay koonfur galbeed wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya iyo warbaahinta guud ee koonfur galbeed Soomaaliyaba waxa ka dhaxeeyo xiriir aad wanaagsan oo wada shaqeyn ah wala way iska jiri karaan duruufo kala duwan oo mararka qaar kood soo wajihi kara dadka ama wariyaasha hase yeeshee wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhaxayso wariye Mukhtaar Maxamed Catoosh wuxuu ka mid yahay wariyaasha ku sugnaa muddadii aadka u fogeyd gobolka Baay gaar ahaanna magaalada Baydhabo wakiil wareedna uu ahaa VOA oo ku hadasha afka Soomaaliga hase yeeshee muddo maalmo laga joogo ka hor Mukhtaar Maxamed Catoosh wuxuu war ka tabiyay magaalada Baydhabo isagoo u diraya VOA kuna tilmaamaya in uu ka dhacay gobolada koonfur galbeed Soomaaliya kufsi gaar ahaan inta u dhaxaysa degmada Walaweyn iyo Leega inta u dhaxayso arintaas oo Mukhtaar Maxamed Catoosh xigasho iyo hubin midna uusan gelinin cadaymo rasmina uu u haynin ayuu wuxuu idaacada ka sii daayay in la kufsaday saddex hablood oo u soo socotay magaalada Baydhabo mid ka mid ahna dhaawacii kufsiga loo geystay ay u geeriyootay kuna geeriyootay isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo kadib markii aan daawanay muuqaalkii Mukhtaar Maxamed Catoosh uu la wadaagay VOA oo ahayd in saddex hablood la kufsaday mid ka midana ay afar jir ahayd ayadoo dhaawacna la keenay magaalada Baydhabo dabadeetana isbitaalka ay ku geeriyootay dawladdu waxay baaris samaysay si xaaladda si degdeg ah wax looga ogaado warbixinta wariye Catoosh uu ka tabiyay magaalada Baydhabo hay'adaha ammaanku waxay markiiba dadaal u galeen iyo dawladduba inay arintaas soo xaqiijiyaan haddii uu falkaas uu jirana laga daba tago haddii uusan jirina baaritaan dheer loo soo sameeyo hase yeeshee dawladda koonfur galbeed iyo hay'adaheeda ammaanku waxay xaqiijiyeen oo ay ogaadeen in aysan jirin wax kufsi ah oo ka dhacay inta u dhaxayso degmada Walaweyn iyo deegaanka Leego laguna kufsaday habla Soomaaliyeed mid ka mid ahna ay halka ku dhibatay dawladdu waxay waraysiyo badan la yeelatay isbitaalada ku yaala magaalada Baydhabo iyadoo raadinaysa xogtan wariye Mukhtaar Maxamed Catoosh uu ka gudbiyay magaalada Baydhabo oo ah in inantaas ay dhimatay dadkeeda iyo famligeedaba ay aasteen waxa soo baxday inay tahay war been abuur ah oo aan sal iyo raad lahayn oo aan xigasho lahayn wariyuhu marka uu xogta maqlo inuu raadiyo waa shaqadiisa dabadeetana uu baaritaan ku sameeyo xigashana uu helo waraysi ama maqala ama muuqaala oo cadeynaya waxa uu sheegay si ay barito oo ugu soo laabanina uu diyaarsado sidoo kalena uu dhinacyo kala duwan waraysto haddii nidaam iyo dawlad ay ka jirto deegaanka markaas uu ku shaqeeyo iyo wuxuun dawladnimo inay ka jiraan wariye Mukhtaar Maxamed Catoosh warbixinta uu VOA ka sii daayay ma lahayn xigasho ma lahayn cadaymo codah ma lahayn cadaymo muuqaal ah sidaa daraadeed markii aan xogtaas maqalay oo aan in muddo daba taagneen xafiiska xeer ilaalinta gobolka Baay ayaa ka codsaday ku soo eedeeyay Mukhtaar Maxamed Catoosh kana codsaday maxkamadda gobolka Baay waaraan soo qabasho kadib maxkamadda waa ay ka ogolaatay gobolka Baay shalay oo ay taariikhdu ahayd 12 bishana waxa la horgeeyay maxkamadda gobolka Baay waxaana loo gudbiyay xabsiga si ku meel gaar ah inta laga dhageysanayo dacwadiisa
sidaa daraaddeed xariga mukhtaar maxamed catoosh looma xirin arrin siyaasadeed looma xirin arrimo kale oo ka baxsan qodobkan hadda lagu soo eedeeyey waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeedna la wadaago dadka Soomaaliyeed oo aan hubsiinada aad moodid waayahan inay ku yar tahay wax kastoo la sheegana aan dhinacyo badan ka eegaynin inaan u sheego in mukhtaar maxamed catoosh aan loo haysanin arrimo siyaasadeed amaba arrimo kale oo ka duwan mukhtaar maxamed catoosh waa eedaysane ma aha dambiile waxaan rajaynayaa inuu ahli doono cadaalad waafi ah oo uu isdifaaci doono eedeymahan xeer ilaalinta gobolka bay ay ku soo eedeeyeen falkan raad la'aanta sida daradeed wariyaasha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan kuwa koonfur galbeed ku sugan iyo kuwa Soomaaliya ee caalamka ku sugan ba waxaan ka codsanaynaa in ay propaganda ka sameeyeen xariga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar waa bani aadam wuxuuna jooga deegaan ay dawladda ka jirto ilaalinta amnigiisa iyo shaqadiisa si wanaagsan inuu u gutana dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ayuu waajib ka saaray kuna hoos nool yahay sida daradeed waxaan sugaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu cadaaladda la horkeeno maxkamadda gobolka bayna ay horkeento sharciga mukhtaar maxamed catooshna uu qabsan doono asagoo iska difaacayo eedeymahan xafiiska xeer ilaalinta gobolka bay ay ku soo eedeeyaan haddii ilaahay qadaro aad u mahadsantiin